maanta waxaan barnaamijkan kusoo qaadanayaa laba qodob ee kala ah xaaladda guud ee Jubbaland iyo mustaqbalka Axmed Madoobe. qodobkayga labaadna waa kulan saddex geesood ah ay ku wada yeesheen magaalada Arusha ee dalka Tanzania, madaxweynaha dalka Soomaaliya, madaxweynaha dalka Kenya iyo madaxweynaha dalka Uganda oo ay si weyn isula qaada dhigeen wada hadallo dib loo furayo Soomaaliya iyo Ethiopia. oo arrimo xasaasi halkaas ay runtii waxa way ku soo bandhigeen dawladihii la shirayay Xasan Sheekh Maxamuud oo Kenya iyo Uganda ah. marka arrimahaas ay halkaan ayaan idinku faraqayn doonaa wixii ka soo baxay iyo runtii wixii lagu wada hadlay qaybaha dambe. laakiin aan ku hormaro Jubbaland Axmed Maxamed Islaan sida la socota doorasho saddexaad ayuu sameystay, asaga ayaa isku caana shubay. dawladda federaalkana waa ay ka diiday. laakiin sida la socono 13 sano ilaa iyo in ka badan ayuu joogaa Axmed Maxamed Islaan magaalada Kismaayo ama guud ahaan gobolka Jubbaland. laakiin runtii waxay su'aasha tahay maxay tahay xaaladda hadda taagan. Axmed Maxamed Islaan xaguu garab ka heli jiray shalay 13 sano oo magaalada jooga, xaguu garab ka heli jiray iyo garab ka haystay. sideeda waxaa la yiraahdaa proxy war. dawladda Kenya iyo Ethiopia waxay proxy war wax la yiraahdo kula jireen oo runtii ay mar walba waxa waa garab iyo taageero iyo hubeen u hayeen maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, iyagoo ku taageerayay wax la yiraahdo buffer zone in ay xuduudda ay runtii waxa waa asaga ku ilaaliyaan oo ay danahoodii waxa waa ka fushadaan oo ay wax allaale waxay doonaan u meeriyaan. 13 sano ayuu runtii waxa waa kala soo shaqeeyay. laakiin sideedaba waxa waa dadka intelligence-ga ah waxay yiraahdaan qofkii informer ahaan kula shaqeeya ninka intelligence-ga ama dawladaha intelligence-ga ama dalalka ama hay'adaha intelligence-ga ka shaqeeya aakhirka qofkaas uu iiga dila. hadda waxaa la gaaray xilligii ay nimankaasi ama dawladaha sirdoonkoodii ay maanta go'aan ku gaareen inay ka taqalusaan Axmed Maxamed Islaan. maxaa yeelay sideedaba siyaasadda ama waxa waaye ma taqaanaa interest-ka wax joogta amaan sideedaba waxa wadanihi ay lahaayeen ay ka gaareen. maanta xaaladii guud ayaa isbedeshay. Ethiopia iyo Soomaaliya heshiis ma ahan. Ethiopia gib ahaan waa ay ka ruqaansatay meesha la yiraahdo Gedo. garoonkii ugu dambeeyay isku adkaysay African Union iyo international community ayaa u sheegay dalka waa dal Soomaaliyeed, xuduudana waxaad ku joogtay iyo airportkaana sharci baad ku joogtay, laakiin waxa waaye dadkoodii iyo ciidankoodii baa umada ka bax. halkaas waxa waaye waxa ku dhamaaday qaybtii Ethiopia. qaybta kale Jubbaland ku soo hartay ee runtii xuduudahan waxa waaye Kenya iyo Soomaaliya waxa waaye dhankaas kala dhaxeeya. sida la socotaan meel aad u fara badan ayaa ciidamada Soomaaliya la geeyay. Kulbiyo ilaa hadda waa arkaysan Baraare ilaa iyo waxa waaye Raas Kamboni ilaa iyo xuduudo meelo badan ay ka baxeen ciidamadii Kenya ay faaruqiyeen oo hore ay u joogeen ciidamo Jubbaland ah. laakiin maxay tahay dhibka kale oo ku dhacay Axmed Madoobe? Axmed Madoobe waxa ku dhacay ciidamadiisii u jooga meeshaas kulligoodba way ka soo ruqaansadeen oo kulligood waxay ku soo beereen ciidamadii dawladda. sabab aagood iyagoo runtii waxa waa eeganaya danahooga ninka askariga ah haddii uusan helin nolol, haddii uusan helin dalacsiin askari kuma ah. markaas askarina waxa waa sidiisaba waxa waa ninkii jeebkiisii ama noloshiisii maareeya ama biila ayaa askare. Axmed Maxamed Islaan xaaladii runtii waxa waaye dhoofkii dekada, dhoofkii airportka wixii dhan ayagoo hakad ay ka galeen dhaqaalihii uu ku yaraaday. ciidankiisii waa u maareen waaye. ciidankiisii muddo 5 sano ah waxa waa runtii aan qaarkood waxa waa biila la siin, dalacsiin iska badaa 13 sano aan la siin. marka loo carab laalaadiyay oo la yiri waxa waa bal dalacsiintiina iyo darajadiina iyo numberkiina ciidanka balkaalay halkan u maada raxan kastoo soo dhaqaaqda ku ugu dambeeyay maantay ahaayeen, ku ugu dambeeyay shalay ahaayeen oo doomo ku soo baxay 9 ah ee runtii waxa waa ku beeray ciidamadii Raas Kamboni iyo Baraare. marka runtii waxay tahay maxaa garabkiisa ka baxay? marka Axmed Madoobe waxa garabkiisa ka baxay dawladda Kenya. heshiis ay wada galeen Xamse Cabdi Barre 2 maalmood halka uu ku joogay uu ka soo laabtay 2 maalmood ka hor. waxay go'aan ku wada gaareen in Axmed Madoobe ay meesha waxa waa ka saaraan dawladda Kenya garabka ay ku siinayso in meesha ay runtii waxa waa joojiyaan. asagoo la shiray dadkii runtii waxa waa family ahaan u wada xigay Axmed Madoobe. markaas waxa waa ma taqaanaa saraakiishii ama dawladdii madaxdii ugu sareysay dalkaasna ah. shalana waxa waa garab ku siinaa in meesha ku hayaan asaga. laakiin maanta go'aan waxay ku gaareen in meesha Xamse uu joogo, General Khalid uu joogo iyo taliye Ciraaqi runtii ah rag area u dhashay ka soo shaqeeyay nabad sugidda intelligence-ga ayuu ka tirsanaa ninka la yiraahdo General Khalid oo muddo dhowr ah ayuu waxa kula dagaalamay shabaabka iyo runtii argagixisada area-daas oo dhan. waa nin deegaanka tuulo iyo xaafad u yaqaano, waana nin sirdoonka wax badan ka soo shaqeeyay Jubbaland.
marka runtii waxyaaba badan ku guuleystay inuu dadkii waxa waaye u gacan haadiyo oo runtii waxa halkaa kusoo biiriyo marka runtii waxay ku sugan tahay axmed xaaladiisa waxa waaye haddii la yidhahdo dhanka goobweyn meelihii etoobiyaanka ay ka baxeen new kismaayo meesha la yidhahdo ciidamadii fadhi jiray xuduudka yare waxa waaye mataqaanaa goobta ay ku ilaalin jireen waxa waaye jubbada dhexe wixii oo dhan waxa waaye ciidamada dowladda soomaaliya ayaa wada fadhida hadda ciidamadii jubbaland joogana kulligood waxa waa ay kasoo ruqaansadeen oo qaar baa la leeyahay hadda magaaladiiba soo galaan laftarkooda marka runtii waxaa hadda ilaalinaya ama uu naf ka helaya waa runtii ciidamada jubbaland ee ku sugan madaxtooyada iyo soonaha siinaa iyo daabyaanba iyo calanaya ereyada keliya laakiinse siyaasadda waxay tahay waxaa dowladda ay ka baaqsanaysaa wararkii aan helayno iyo xamse cabdibarre iyo jenaraal khaalid intaba in ciidamo isku dhacaan in waxa waa xoog loogaga saara meesha asaga laakiinse dowladdii kenya ayaa hadda runtii waxay tiri axmedow xaalad intay runtii sii cakirnaan aysan meel xun gaarin runtii isaga soo dhaqaaq marka arrintaas ayaa laga warsugaya maalmaha soo socda marka intaas taasaan uga baxay waxa kasoo baxna waa isla socodsiin doonaa marka bal aan usoo laabto kulankeeni caruusha ee dowladaha waxa waaye mataqaanaa bariga africa ee runtii waxa waaye horumarka dhaqaalaha iyo waxba halkaa kaga hadlaayeen bal usoo laabto 8 dal ayaa halkaa isugu yimid oo runtii waxa waa ka hadlay arrimo aad u fara badan oo ganacsi laakiin shirkii markuu u dhamaaday magaalada caruusha ee dalka Tanzania waxaa shir gooni ah yeeshay dalalka Kenya, Uganda iyo Soomaaliya iyagoo ka hadlay arrimo aad u fara badan runtii ah arrimaha Ethiopia iyo Soomaaliya khilaafka dhex yaala madaxweynaha Kenya si cad ayuu u soo jeediyay oo nala dhageysta bal horta hore runtii waxa waaye madaxweynaha dalka Kenya, madaxweynaha dalka Uganda, madaxweynaha dalka Soomaaliya waxay si gooni ugu wada hadleen arrinta siyaasadii waxa way guracantay siyaasadii meesha fog gaartay ee Soomaaliya Ethiopia xasan sheekh oo wali ku adkeysanaya waa in ay ka laabtaan memorandum of understanding qaldanaa ee Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed ay ku wada galeen magaalada Addis Ababa period waxaan aniga go'aankayga u yahay ayuu ku cadaystay inuu horta ka laabto Turkiya baa la isugu tagay Kenya la isugu yimid meel badan baa la isugu arkay go'aankayga kaasoo ahaa haddana go'aankayga waa kaas waa ay ku laabteen wasaaraha Ethiopia waxaa la hadlay William Ruto waxa ku yiri madaxweynaha wali saas u taagan Soomaaliya ee maxaa ku tala ah waxa badiyaan la u yiri memorandum kaasi tood inaan ka noqdo laakiinse waxa waaye qoraal iyo jawaab laga sugaa wali Soomaaliya aysan gaarin safarkiina halkaas ayaa lagu soo gabagabaystay laakiin Ethiopia maxaa iska bedelay maxay tahay arrinta hadda damacaan noocan ah ay ku dhaqaaqayso Ethiopia waxay go'aan ku gaartay runtii markii dhaqaale xumo ku dhacday burbur dalkeeda uu ku dhacay dhaqaalihii ugu badnaa aan hadda ka horna waxa maqal ku soo qaatay almost 1 billion ee waxa lagu kala jarjarin jiray magaalada Addis Ababa ee African Union ka xaruntooda ahayd waa ay seegtay waxay gacanta u gashay dawlado kale oo aan runtii waxa asaga dana u helo cadow u arko kamid tahay Egypt ayaa qaadatay lacagtii ugu badneed xoogoodii Uganda iyo Kenya intii ay heli jireen ayay helayeen mar walba 450 million waxa gacantiisa ku dhacaysa Egypt iyadoo dhinacyo badan oo tababaro ah dhinacyo badan oo waxa waa maalgelin ah dhinacyo badan oo waxa waa hub ah in ay ku taageerayso Soomaaliya qarashkaasna ay taas ku qaadanayso ilaalinaysana waxa waa xuduudaha hawada iyo badda intaba ay ka duwan tahay manhajkii hore ee Ethiopia ay ku joogtay gedo iyo meelo qaarkood Soomaaliya oo dhinaca Hiiraan ah marka manhajku waa uu ka dheeryahay qarashkana waa uu ka badan yahay marka waxa waaye Ethiopia oo runtii waxa waa colaad iyo calool xumo ka muujisay arrintaas ayaa u go'aan ku gaartay inay ka tanaasusho wax walba laakiin maalmaha soo socda waa weekend hadartaan maalmaha soo socda ilaa iyo jimcaha isniin ilaa iyo jimcaha inay go'aan cad oo ka soo baxay u muuqan doontaa oo Ethiopia si toos ay u laabanayso iyadoo waliba hadda ka shakisan imaatinka Abdiraxmaan Cirro oo runtii waxa waa ay u arkaan nin runtii ku yimid inuu manhajkaas memorandum of understanding uu ka laabanayo doorashooyinkii ballaarna ay ka dhacay Somaliland oo runtii waxa ay gobolkii Awdal si weyn u taageersanayeen Abdiraxmaan Cirro oo ay ujeedadooda ahayd in aanan waxa heshiiskaasi waxa uusan hirgelin heshiis badan oo lagu taageeray dawlado badan oo waxa sirtooda waxa la soo saarin ayaa runtii waxa arrintaasi aad u xoojinaya oo leeyahay Soomaaliya dawladeeda ayaa qayb ka ah taageerada Abdiraxmaan Cirro warkaan helino oo ay runtii ujeedadooda ahayd iyagana in heshiiskaasi halkiisa lagu hakiyo marka dawladda Ethiopia waa ay darantay arrimaha socda
marka waxa waaye inay hadartaan waxa waaye ka mid noqoto kuwa iyo soddonka mandate-kooda maadaama uu ku yahay in dadka loo cusboonaysiin doono ayay runtii waxa waaye weli ku haminayaan laakiinse go-aanka xasan sheekh sida uu u muuqdo in aysan waxa waaye waxba iska bedeli doono hadduu ka noqdo xataa markii dalka hadartaa waxa meelihii ay joogeen oo dhan waa ay ka baxeen buffer zone-kiina waxa waaye runtii dib bay ugu laabteen marka waxa waaye dalkan kuma soo xadgudbi karaan oo African Union-kii international community-ga UN-kii waxba u sheego liiray mandate-kaaga hadduu dhamaado waa inaad minute waxa waaye meesha aad sii joogan marka arrimahan waxay ka soo baxay mar kale ayaan ka hadli doonaa marka bal intaasaan kusoo gabagabeynaya